واوري حدا مقال كان داونيسد عاو الجزيرة ككعن الجزيرة iyo BBC caawa hadaa ka kacdid adaa isdishay sax waxa Iran ayaa ugu dambeyn duulaankii ugu horeeyay ku soo qaaday Israel Iran waxay soo dirtay waxa la leeyahay oo Mareykanka sheegaya inta u dhaxayso 75 ilaa 100 diyaaradahan loo yaqaan droneska oo yar yar ka ah oo aadka wax u qarxiyo waa kuwa Iran ee ka gaday Ruushka waaye shahiid Allah alaabtaas ay soo dirtay hawaday soo marayaan waxa la xaqiijiyay diyaaradahaas droneska ah ee Israel ku soo fool leh in Tel Aviv dudumiyaan loogu talagalay waxay hadda soo marayaan hawada Iraq hawadeeda soo marayaan Iran ay ka soo baxeen Iraq hawadeeda soo marayaan dhankan iyo waxay u soo socdaan Israel u soo socdaan wax allaale iyo wixii diyaarada ahaa ee la boorada Israel iyo Iraq iyo Syria iyo Iran iyo Jordan kulli waa la xiray kulli wax diyaarada ka soo deegi kara haba yaraatee ma jirtaa lahayd hawada dalalkan hadda idiin soo xusay hawadoodo dhan xitaa Kuwait ku dar hawadoodo dhan caawa waa wada military waay diyaaradihii ama aan dhahay diyaaradahan droonka oo dagaalada loogu talagalay inay soo baxeen hawadu ku soo jiraan taas waa xaqiiqo waxa haddartaan hadda aljazeera daawanaysid la xaqiijiyay inuu hadlay ra'iisul wasaaraha Yuhuda Netanyahu waa hadlay wuxuu dhahay diyaaradaha nagu soo fool leh waxaa jiro iska dab orday jiro Mareykankii wuxuu diyaar gareynayaa sida diyaaradahaas hawada loogu qarxin lahay inta aysan Tel Aviv soo aysan ku dhaxdhicin oo dad Israa'iil iyo wax isugu jiraan inta aysan lahayn horse ogtihiin 2 isbuuc ka hor Israa'iil waxay si gardarro ah u dishay 3 sargaal oo muhiim u ah Iran waxaana lagu dilay safaaradooda Syria ku taalo Damascus ku taalo safaaradooda guri ku dhigan dabaq ku dhigan lagu dudumiyay meeshaas ku baaba'een Iran tan iyo 2 isbuuc dhan waxay lahaayeen weerar qaadeena waana ka argudinaynaa ay dhaheen Israa'iil asxaabay waa xaqiiq caawa diyaaradaha hawada ku soo jira hadday Israa'iil hawadeeda soo galaan ku dul dhacaan Tel Aviv waa dagaal toos ah waayo oo u dhaxeeyo Israa'iil iyo Iran sababtoo xitaa Israa'iil waxay tiri waa argoosanaya haddii hal xabad Iran ka timid hadday dhulkayga ku soo dhacdo Tehran gubanaysa dhahday Israa'iil la dhahday ogow marka sheekada caawa Iran waxay taagan tahay okay waxa sameyn kartiin sameeya anagana waa soo rideena marka waa laba dal oo nuclear ah Yuhuda nuclear haystaan sida ogtihiin Mareykanka ka caawiyay Yurub ka caawisay Iran nuclear haysata ya ka caawiyay Ruushka ka caawiyay iyo Shiina iyo North Korea ogaada haddii labadan dal ee isku dhacaan oo qobta caawa bilaawato dagaalka saddexaad ee adduunka waa saas ogaada macnaha waxa kale oo rabay inaa bal yani idin xaqiijiyo cidda Yuhuda ah cadaadis far badan oo ku furan sida ogtihiin Gaza waxay dudumin karaan dudumiyeen laakiin dhankan kale xuduudka waqooyi cidii Hezbollah ahayd ayagana maalin walba iyo habeen walba nafta u keen sida ogtihiin Yuhuda gantaala ku soo dhaco waxba ku soo dhaco marka sheekada waa qasan tahay ma la isdhihi karaa idinka taaya ma la isdhihi karaa waa bilowga dagaalka saddexaad ee adduunka ma la isdhihi karaa fursad lagu qaboojin karo waa jirtaa ani ahaan Soomaalka boy siyaasadan aad ugu dhex jiro iyo arrimaha military waliba dagaalka saddexaad ee adduunka labadan dal hadday qabta ka dhacdo Israa'iil berri marka diyaaradaha soo dhacaan Tel Aviv hadday Yuhuda weerarto Iran hor dagaalka saddexaad ee adduunka cid celin karto ama joojin karto haba yaraatee ma jirto Shiina dana ugu jirto dagaalka inuu bilowdo Ruushna dana ugu jirto dagaalka inuu bilowdo bariga dhexe ee ka qaraxda baash sababta dana ugu jirto waxa waaye Shiina wuxuu rabaa inuu Taiwan qabsado Ruushna wuxuu rabaa in Yurub tani Mareykanka laga baasbaasay macnaha asagana uu wixiis iska jajabsado Ukraine iska qabsado Georgia qabsado dhul fara badan u socdaa naga soo odayga marka caawa hadaa seexatid stupid tahay wax la socotid haweereetay ma jirto indhaha kala fur aljazeera indhaha ku hay sheekada badacbatashay maraysa baxsan waa waray caawa bariga dhexe waa qasan yahay caawa dunidu waa qasan tahay waqti xaadirkan idin la hadlaayo diyaarada Mareykan oo kuwa dagaalka waxaa laga soo sheegayaa Washington Virginia dhulka Mareykan gudihiisa diyaarada kacay warse wax u jiraan okay muuqaalka horeeyay waa daawateen Iran waxay soo dirtay caawa weerarka ugu horeeyay dhul Israa'iil ama dhulka Yuhuud ee leedahay lagu qaado ayaa caawa dhacay Iran waxay soo dirtay boqolaal diyaaradaheeda droneska ah dalka Iran gudihiisa laga soo diray fiiriya waa arrin weyn waay dadka adduunka la socon waxaan ciyaar u malayaan Iran boqolka diyaarad ee soo direen oo kuwa waliba droneska ah kuwa dagaalka ah Israa'iil waqti xaadirkan muuqaalka aad daawanaysid waxay ku jiraan
siday dhulku ku soo ridi lahaayeen diyaaradahaas hawada Syria hadda isku haysta haddabaan hawada Syria ay soo galeen diyaaradihii Iran sidoo kale kuwa Israa'iilna hawada Syria gal hawada Syria marka isku haysta Syria laftirkeeda waxay haystaan gantaalada diyaaradaha soo rido Syria marka ayagana dhulka wax ka soo tuurayaan waxay isku dayayaan Israa'iil ama Yahuudda diyaaradaheeda xuduudka soo galo inay dhulka soo dhigaan ku Iran inay fasaxaan isku marka haddadaan haddaa tahay qof Soomaali ah oo Syria ku nool caawa hawadiina waa shidan tahay taas xagga noo dhig Israa'iil ama Iran aan dhahay way ka aqli badan caawa Israa'iil ama Yahuud way ka aqli badan Iran maxay sameeyay marka ugu horreysay boqol waxay soo dirtay drones ah Israa'iil wax alaali wixii diyaarad ay hayeen drones kaasi aadiyeen dhanka Syria aadiyeen haddadaan waxa la sheegayaa in Iran haddana boqol kilo dheeri ah ay soo direen boqol kilo dheeri ah oo diyaarad hadda inay oo drones ka ah hadda inay Iran ka soo baxeen oo hawada Iraq ay soo dul marayaan la sheegayaa aqligan fahma Israa'iil waxay haysataa waxyaabaha loo yaqaano gantaaladan loo yaqaano kuwa dhulka soo rido wixii hawada soo gal macna laakiin ogow kuwa aad u fara badan ma haystaan Iran marka aqliga sameynay boqol ay soo dirtay boqolka inta Israa'iil ku mashquulsan tahay boqol kale loo soo diraa macnaheedu caawa marka boqolkan ay soo ridaan boqol kale ay Tel Aviv macaan ugu dhacayso saas ay tahay Yahuuda waa ogaatay farsamada waqti xaadirkan Yahuud waxay ugu baaqday wixii hurdaay inay hurdada ka soo kacaan oo Yahuud ah oo Israa'iil gudaheeda ku nool waxaa la yiri godadka hala galo ala dhahay godadka hala galo ala dhahay waxa waaye wax gantaaladu ugu soo duldhici doonaan shakadan kale dhageysta waxaa la leeyahay Iran laftirkeeda ay xaqiijisay shakadan shako culus waay caawa ay hurdina Iran waxaa la leeyahay ba diyaaradahan droneska kaliya ma ahane waxay